degmada Jariban ee gobolka Mudug ayaa maanta waxa ka dhacay kulan looga tashanayay mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee JBLG-ga 2020 kaas oo laga hirgelin doono degmada Jariban ee gobolka Mudug. Kulan arintaas looga hadlayo oo bulshada qaybaheeda kala duwan la isugu keenay ayaa waxay ku soo bandhigeen baahiyaha deegaanada iyo waliba sidoo kale gudaha degmada Jariban oo ay uga hadlayeen baahiyaha ka jira deegaanada iyo degmada si looga faa'iideysto mashruuca horumarinta degmooyinka. qaar ka mid ah bulshadii ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay. waxaan sheegnaa degmadu guud ahaan baahideeda badan, tiradeeda badan, kormeer la'aanteeda badan. waxaan codsanaynaa hay'adka wasaarad kasta ahaada in degmada il duwal lagu yeesho. guud ahaan annagu waxaan nahay degmada Jariban. degmada Jariban baahiyaheedana ilaahay baa dhamaystiri kara, annagu ma dhamaystiri karo. qof bini aadmiina ma dhamaystiri karo. nooc kasta oo baahiyaha adduunka ka jira. waxaan u rabaa inaan aado marka maadaama la rabo qorshaha in la kala qaato oo hadhowto wixii la soo bandhigay la isu keeno inaan ka hadlo meesha igu aadan diratamiito degmada aan ka leeyahay. macnaha waxa weeye degmadu waxay leedahay deegaamo tiro badan ilaa 50 iyo bayu ah. waxaan ka soo jeedaa aniga degmada Garcad. deegaanka Garcad degmo ma waa deegaan, sorry. deegaankaas dadku sidoo ka warqaba reer Puntland waxa ka socda mashaariic horumarineed oo isku tashiya oo aad u ballaaran oo la tartamaya Soomaali weyn. waa la socotaan dekad baa laga dhisayaa socotaan dhismaheedii. markii dekadaas iyo mashaariicdaas bilaabatay waxaa soo bilowday dadkii inay daneeyaan oo bulshadu danayso. deegaankii baa ballaaran haya, waa la soo degayaa, dhismihii baa ballaartay, dadkii baa soo batay. waxay maraysaa meel hadda markaan cajiib ah oo dadku marayo. sidaas oo ay tahay dhinaca waxbarashada dugsi sare iyo kii dhexe iyo kii hoose saddexdu way saaran yihiin. sida hadda odayaashu sheegeen deegaamada waa la qabnaado uurkay nooga jidhaado ama ha noqoto waxbarasho ha noqoto ama ha noqoto haddii ilaahay idankeeda leeyahay caafimaadka ha noqoto ama biyaha ha noqoto. waa degmada Jariban xuduntii weeyo oo sida ay sheegeen waa la qabnaado nin kastoo wax garanaya waa salkii Jariban weeye. farcanka ay ka farcantay yani magaalo ka mid ah oo aasantay oo dhinowda la yiraaho baanu ka dhawaaqeen awalla waa ka dhawaaqeen jirnay. madaxduna waa soo aragtay sida gudoomiyahoo kale waa og yihiin. magaaladaas ciid baa aastay. baabuurtii meel ay wax u keento wuxuu siday carra gaari gacan iyo looga soo guragurayaa iyo wixii la mid ah. magaaladii ciid baa aastay, afarta garbay ka aastay. hal iskool ay lahayd oo iskoolkii ciid baa iyadana u timid. anigaanu gacantaydan wax kaga guray, gacantayda waxaan ka soconaa xaafadaha, maxaan kuu sheegaa tuulooyinka, meelo kala tiro badan, caafimaadka inta waa ka soconnaa. laakiin hadalku wuxuu leeyahay beyntii odayaashii baa ka hadlay, maamulkii baa ka hadlay. kolley hadda annagu arrin aan la ogayn inaan ka hadallo u malayn mayo. laakiin waxaanu ayidaynaa wixii micnaha baahida rasmiga noo ahayd oo aanu meesha iyo bugta iyo farta isog ah baan rabnaa inaan sii xoojino. degmada Jariban sida looga hadlay xagga caafimaadka waa laga hadlay, xagga biyaha waa laga hadlay, xagga maxaan kuu sheegay waxbarashada waa laga hadlay, xagga jidadka waa laga hadlay. kolleyn anagu xooga maryan ahaan gudoomiyaha ururka haweenkaan ahay waxaan saarayaa oo aan maanta ololahayga u taagan yahay. gabdhahana aan u xoojiyay jidadka magaalada degmada Jariban
baa annaga priority noo ah oo aanu rabnaa in ay isku muuqato degmada Jariiban bilicdeeda. sidoo kale maamulka degmada Jariiban ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay soo bandhigeen ilaa iyo 19 baahi oo ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ay ka soo keeneen deegaanada iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah dadweynuhu kuwii ay ka soo hadleen oo ka mid ahaa baahiyaha u diiwaan gashan degmada Jariiban. degmadu ayadoo og baahiyaha degmada ka jira bay haddana dadkeeda la tushataa annagu waa ognahay waa soo aruurinay waa haddii la kuurayahay aad iyo aad baanu baahiyaha degmada u haynaa xafiisyada degmada yaalaan ayadoo ay saa tahay baanu haddana bulshada la tashanaayo weydiinaa inay fikirkooda iyo aaradooda ku kordhiyaaniin degmadu waxay kaloo qorshaysay mashaariic kale oo gaaraya ilaa iyo 15 mashruuc oo ay degmadu sanadka soo socda fan u raadin doonto haddii la haymo. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland ayaa dhinaceeda iyaduna soo dhaweysay aragtiyada iyo waliba sidoo kale qorshaha ay keentay dawladda hoose ee degmada Jariiban kuwaas oo dib loo sii dhigtay iyaduna sidoo kale 4 mashruuc oo kamid ahaa mashaariicda GBLG-ga iyadana degmadu ay soo bandhigtay waxaana ay bogaadiyeen qaabka loo doortay iyo waliba sidoo kale kuwan kale oo ay wasaaraddu ku baaqday in iyagana sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadaalka ay wadaan maamulka degmada Jariiban uu hormuudka u yahay gudoomiyaha degmada iyo golihiisa deegaanka iyo waxyihiisaba marka anagu maanta markhaati waxaan ka nahay in halkaan wasaaradaha kala duwan mashaariicda inta la sheegay hadda oo JBLG-ga maana inta kale in wax la yiraahdo loo raadiyo u qareemid hay'adaha iyo wasaaradaha ay khuseeyaan ay la wadaagto degmadu si wax looga qabto deegaanka intaas leeg marka insha Allah maanta waxaan rabnaa inaan hadda gacanta u taagno maadaama degmada ay idin soo bandhigtay si mataqaanaa wada tashi iyo ka qaybgal buuxa loo arko. ugu dambeyn duqa degmada Jariiban Maxamuud ayaa ka hadlay gabagabadii kulankaas soo xiray waxaana uu bogaadiyay dhammaan bulshadii ka qayb gashay kulankaas waxaana sidoo kale uu sheegay in lagama maarmaan tahay in la wada shaqeeyo dawlad iyo shacabba ku diyaar garoobo in wax la wada qabsado in la shaqeeyo dadku asaga haduu iska dhigo dad farfadhiyana dad farfadhiyo ahaanaya magaalooyinka aad aragteen horumarka aad aragteen dadku asaga hantidiisa hora maskaxdiisa isku darsada hantida isku darsada aqli la yimaada walaalahayga meeshan jooga waxaan ka codsanayaa dalku wuxuu asaga ismaamula asagana iswada asaga haduu u diyaar garoobo wax qabad meel ma gaarahayo dabadda haddii nalo kaga yimaado oo wax naloo sheego oo aan qabsan meeshay joogaysaa